السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي ميل كستو الدنيا دعليه إذا كجوكتين وولاشين فان برامبرون لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوم ونكسن ميل كستو الدنيا دعليه إذا كجوكتو هدي أتكسو غنتاي أفريقيا إيه هدي أتكسو غنتاي إيشيا هدي على يكون حال الدنيا دعليه إذا كجوكتو صومك يا صلاة يا صدقة يسكده يحجك انت بإلهي نجا وضع أقبله أنا نجدوه كوبا ومادة إسلامك كنا بدجران أو أجر تربى نصون كلاسية آمين يا ربي دعاء ذنا لا أقبله أجرنا الله سبحانه قادرك وكاسية بشان قيريسن أتصومن تي رمضان ما شاء الله هدي أجعش هاي إن أذ وحكة أوجاته سوشيالك مركا ilmaha qaataan dhibaatooyinka uu qofka bini aadanka kala kulmi karo ama dhibaatooyinka aad isleedahay ma u adkeysan kartaa ama ma u adkeysan kartid ama resetka lagaaga heli karo hadii ilaahay waa maqaldame aad qaldanto si aad qaladkaada ama u qirato ama hadii qalad lagugu nabay si aad uga hortagto intaba aniga ayaa ku hay insha Allah aniga marka qaybta waxaan ku jiraa alxamdulillah lagu qaldamay abtinawdan arinteedu iska daba maleega ay tahay ilaahay ii bari ilaahay inuu furfuro ilaahay waxaan mareegan in uu furfuro wuu awooda ilaahay awoodeeda ayuu leeyahay alxamdulillah awoodo aniga igu caafiyay ugu samarsiiyay ayuu leeyahay alxamdulillah shukr rabbil alamin marka موقفka labaad ee galay waxay tahay booliiskii iyo marqaatigii iyo dariskii iyo qaabka ay waxaan ku dhaceen maxaa dhaca marka baaritaankii iyo qaabkii ay gabadhan labaad ku soo gashay ayaan rabaa gabadhii hore waan ka wada hadalnay oo ilaahay ka suko i badbaadisay ama na badbaadisay oo dariskeena ah oo buuqa oo ayada darteed ku dhacay gabadha kale marka oo dariskeyga ah iyadana dabaqa 8 degan cunugta booliiska ugu wacday habeenkii markay 3 saac tahay hal saac ay barna oroday oo annagana hal saac ay bar meel kasta ka raadinaynay hal saac iyo bar guriga ku haysatay ka dhigtay in 3 saac oo habeenimo irida laga soo bixiyay inay dhaxamoonayso dhar la'aanta ka dhigtay in la soo dila ka dhigtay in cunugta la dhibaateey ka dhigtay cabsi ay ku jirto oo ay qalqalaysa ka dhigtay booliiski deedna gabadhii wuu watay markuu watay gabadhan marka gabadhii boosh garaysay oo tiri meel fiican lagu geynaa dhibkaana laga bixinaa sidaan waa cabsanaa dhig guriga ma rabide ilaa cunugtii waa ilmo yar oo 12 jir qofka weyna maskaxda uu ka rogay waxaana loogu sheekeeyay sidaan hore inii sheegnaba nolosha gurigan taal nololka qurxoon hooyada markasta maxay suubisaa aabahaas muxuu suubiyaa cunugiisa inuu cunugna ka horeynin hooyaduna awlaadeedu ay u dadaasho marka aniga aan rabay in siham aan wacyigeliyo ama aan wax u sheego waxaan rabay Soomaha in ay ficid ka hormarto wax ii barato ciyoon ay seexato waxaas dib ayay la tahay waad soo martay waa soo maray markii anagoo dheedeelayno oo kale cajiinka noo diray ama liraa cid hebel orod caana nooga daamasaan hooyo dhib badana waad dhibsanayso hooyada oo waxay kula ayd wax yaani dhibaatada adduunka ugu hayso laakiin alxamdulillah qofkii dareema ayaa dareema calaa kulli xaal marka gabadhii markii beentaas iyo cabsidaas lagu gilgilay socialkii yimaadeen booliiskiina ay gabadha dariska u dhiibtay socialkiina kuba habeenkii ilmaha qaato ay qaateen ayaa isla socialkii waxay sii raaceen sheekadii Siham ay suubisay beenti ay Siham suubisay markay sii raaceen booliiska ula tageen marka maxaa keenay marka in booliiska soo dhaxgal arintan maxaa keenay inuu booliiska baaro socialki marka labada mid oo ilaahay ani iyo socialka nagu kala badbaadiyo waxay tahay ayaku waxay cuskadeen marqaatiga ciidan iyo marqaatiga gabadhii buuq habeenku dhacay joogtay gabadhii waati uma noqonayna videoga kale ku jira arimaha uga sheekeeyay iyo qaabka iyo booliiska cunugtaas kala kulantay gabadhaana ku soo hartay gabadhaan marka nasiib wanaag ani way garan weyse waayo daris aan u tago kuwa Soomaalida ba ka gaarina xagee joogan daris Carabeed ma isna qaan waxaan iskugu tagnaayo meesha ma dhaxeeyay laba waxaan kala nahay hey daas
dabaqaas iyo hiiskaas jaranjaradaas hiiskaas naga dhaxayso banaankaasna ilmahooda waa ilmo waaweyn oo ilmo yar hadday haysato qofka ilmuhu isla dheeli karaa waa is arki kartaan. hooyadii marka hunguri ayaa qaaday waxay damacday inay markhaati ii noqoto markhaati ugu furto maxkamadii marka waxay ugu sheekeeyeen socialkii markhaati ayaan haysanaa alxamdulilah looyaradii sihaam dariskii oo sihaam olba booliiska u gacan geliyeen iyo socialka ayaa ay la hadleen markay la hadleen maamadii dariska ahayd alxamdulilah waxay kala saari weysay sihaam hooyada dhasha runta ah waayo markaa qofkan ku markhaati furaysid ma taqaanaa maxay suubin jirtay maxay qaban jirtay marka markhaatiga waa la isdhaarinaa marka looyaradan iyo naagtan ciddaan dacweeyeen isku luuqad waa marka luuqaday ku wada hadlaan wadaagaan deedna hunguri baa qaaday oo un sida aan maqlay waxaa la yiri dhag baa lagu siinayaa markhaati fur ilaahay ilaa naga qabtay markhaati baa haysanaa bay dhaheen okay kaansada la yiri marka bas markii kaansada la yiri awalan islaantii iyo gabadheeda ama dadkii cunugteeda booliiska u dhiibay waxay diideen in booliiska ay la kulmaan waxay dhaheen anaga cunug ordaysa noo imaatay shuqulku ma lihin wax aan ognahay wax kale ma jiro halkaas ayay marka socialkii garbihii ka beeleen looyaradii ay wateen oo sihaamna u doodaysay hooyadii marka markhaatigii inay noqotay la rabay ama ciddii inay markhaati noqdaan la rabay aniga way igaran waayeen oo anigu qofkaan ahay may garanayn may yani maadaama aanan banaanka isku arki jirin ayna ii aqoonin hadday rabto xatii laga yaaba inay weji ahaan ii taqaan laakiin ilmahan inay ugu aragto in kale aysa ogeyn adigu waxay hooyo ilmo waaweyn haystan ay tahay waxay ku hadashay garan weysa markhaatiga way ka noqotay ma awoodi bay tiri mana aqaano run ahaantii cunugtaas timid habeenkaas wixii dhacan ka sheegi karaa cunugtaasaa noo timid waana caawina waa badbaadina booliiska u dhiibna alxamdulilah meeshaas maxaa kaaga soo baxay in booliiskii laba marna ou la-yahay caddeynta oo tii la dhahay buuqii sihaam iyo gabadhii ku bilowday inay caddeyn uu waaye tan markhaatiga noqotona caddeyn ay ahaan weyse alxamdulilah alxamdulilah halkaas ayaa ilaahay nimcooyinka oo amaanta banaanka ku joogo oo iiga mid dhiga alxamdulilah bas waxaa kuu soo harta marka booliiskii ilaa xad ilmaha ayay ku wareereen abtinowdan arrimaha soo socda hatii ilmaha mar walba way ku liqaafiyen marka gurigeyga iyo qaabka iyo wax oo dhanna waa inaga dhici doonaa iyo inta nagula saleeyo nagu eedeysan iyo arrinta odagayga lagu eedeeyo arrinta aniga lagu eedeeyo waxyaalaha qoran waxyaalahan macquulka ahayn waxaas oo dhan way soo socdaan insha allah tartiibtiina coming soon way imaan doonaan iyagoo caddeemo leh iyagoo aan ka hadlaayo iyagoo insha allah anaka dhan aan yoomal ayaan si fiican haddana u faaqidaan doono maxaa marka aniga waxaan kugu sheegaa macnaha aniga aan waxaan kugu sheegayo oo iyadoo soon ay tahay anakoo sooman wareersan aada ogtahay allergic inaan ahayn waqti aan kuu gelinayo mataqaana 10 daqiiqo si aad iigu duceyso ajarna aan kaaga helo ana ajar iiga heshid oo yacni ilaahay qofkan dhibaha ayaa haysta caruurteeda ayaa xaqdaro looga haysta ilaahay hawsu sahal in rabuudka isaaran ilaahay iga dulqaada inaad iisoo alla baridaan ayaan bishaan rabadaan iniisoo bandhigto oo aan ugu talagalay in aan dan kasta oon lahaa waa soo dhiga inaan halkan ka duceysto inaan live iniisoo galo oo taleefano am sorry xalay waa iska mashquula arrimo gaar ayaan ku mashquula bini aadan ayaan ahay waa mashquuli karaa telefoonka xalay aan daadihinaya maanan daadihin laaksa caawa markuu clipkan kusoo gaaro caawa 6 saac insha allah waa daadihinayaa ducooyinkiina waan u baahanahay sidii ayaan walaalihiin ugu baahnaa aadan niiga mahad celinaa waanan live-kaygaan kusoo sheegi doonaa insha allah aaladeeda snapchat-kana kusoo sheegi doonaa haddii ilaahay qadaro igala socay snapchat-kaygana insha allah iyo instagram-kay tiktok-ay everything inta aniga aan ka nuunuuxsado dhan waa igala socon kartaa haddii aad jecesha inaad daris ila noqotid oo aad jecesha inaad iga warqabtid على كل حال مركا waxaa meeshaas kaaga cad in laba marba anaka hadaa waalidnahay cadeen nugula waayo
maxaa dhaca marka qaabkoo booliiska u imaado guriga qaabkee anaga nala waraysta qaabkee waxaan isku maleegan ee u furfurmaya horta saacad rabiyaa dhiman saacadooda ayay furmayaan halkaas waxaa lagu waayay marqaatigii anaga nagu furi lahaa oo reset anaga ay noogu marqaati furto anagana wayna aqoon weysay way socon weysa beenta marka booliiska inta badan waxbuu kala saaraa inta badan wayna fiicanta in booliiska arrintaada soo fara gashto qayb iyo sharba waa leeyahay haddii lagugu qaldan yahana haba soo daahiye qayrkan wuu iska soo daaha waa ogtiini arrimihii wuxuu leeyay waxaan waxba kama jire dhiiba ilmahan haddii oo markhaatiyaal helo caddeemo helo baaritaanka oo ku dheeraado oo isdhaho waxaan wax macquulo ilaa waxaan dhici karin ayaa meeshaan ku qoran waxaan dhici karinna waa nagula eedeeyay waa nagula salay sidii annaga xabsi gurigeena inuu yahay gurigeena ma cadaaba mase waa janno waxyaalaha ilmehena aan ku suubinayna ma annaga war xatii anigu xayawaanka insaas loo cadaaba ma ogoli iskada bahalka dadka cuna xatiisas in loo galo ma ogoli iskada ilmahaygii aan dhalay oo ilaahay iga beeray marka resetka aan kuulay inuu booliisku kusoo dhex galo booliiska shar iyo qeyr buu ogaan karaa booliiska haddii dariska aan kugu marqaati furin caddeemo badan aan lagaa hayn kala hadal adin laguga arkin ilmuhu inay kala hadlaan waa caadadooda ilaa ilmuhu waa ilmo iska hadlo waxyar waa iska sheegan ayaguna dambi male dee waaba saqiiro aan dambi lahayn alxamdulilah allahna ii deysto ilaahayna ha ii wada keeno ilmahayga dhanna waa jeclaa rabbiga raxmaanka ha ila kulmiyo ilaahay ayaa awood leh awood ayaa laiga haystaa rabbi oo awoodaada iigu soo sahal faatixadana halkaas iiga soo mar waa inuu insha allah qaybaha kale oo dambe iyo booliis baaritaanka booliiska